أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قالي ku xiran channelkayga Munees channel meel walba adduunka joogtaan inay wada caafimaad qabtaan arjeena fadlan hadaan ugu cusubtahay channelka subscribe noo saar hadaa hore noola joogi jirteen muuqaalka like noo saar videogana asxaabtaada noogu share garay wixii raayigaaga qaybta commentiga noogu reeb aad iyo aad u mahadsantiin soo dhawaada walaalaha cusub gacmo furniya qalbi saafi oo idin jecel ku soo dhawaada walaalay hore la joogi jiray kan waxa idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin sida ila joogtaan sida ay dhiirigelinaysaan commentidiina quruxda badan leh ducooyinka dhiirigelinta isugu jirto jazaakumullahu khayran man la yashkuru naas la yashkuru Allah marka jisiina jannatul firdaws Allah ka dhigo dambigeena iyo waalidkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha dhaafo آمين يا رب العالمين ومركلي موقال كلو عصب مركلي قصة كلو عصب وحنا إذا كعدسنا يا مركوباتي مرلواتي مرسدحات إنا موقالك الله تي سارتان فيديو أنا إيشير كريسان حلك فيديو أسوق لي وحرجينا إنا يوقن عندون تان وأنا يقول دير جلن دون تان ده سبسكرايب هالتي هدي شيري لايك هالهاد أنت صديق أنا أقبح أنقص لنا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن قصة ما أنت إذن وضع سيدا عوانك أكاركتان وقصة داس يا ربامات إنا إذن لو ذاقو وحي فالعلمتينا نوارجينا يا إن وانا أركدونا وحاجرت قبرير أولوغو مقعابو سيتون وحي هيدشان إيطبنجير والد كيدا لنول سيتون وحبرشاد وحي كجوجيسي دوكسيق دحائي كجوجيسي إن سبب الله جيرو دالين يرنمو ويا وحبرشاد إني كسيك سيكتو hooyadeed waxay ahayd hooyo bacaad la leh aabeedana wuxuu iska aaba baqaar cuntooyinka jumlada ku bixiyo leh ayuu ahaa nolol iska fiican oo alxamdulillah ay iskaga nooleed gabadha saytuun waxaa ka weyneed 3 wiil ayaa ka weynaa sidoo kale 15 jir ayay ahayd ilmahana waxay ahaayeen ilmo isku nuugnuug ah oo da'da ugu weyn ee curudka hooyadeed ah 20 sano ma gaarinbo marka waxaa dhacday gabadha saytuun ahayd in wiil ay isjeclaadaan ayada oo da'deeda 15 jir ah jaceylka waqtiyadaas bilaabanayna waxa keenaya badanaa waxay tahay cunuga haduusan lahayn waxbarasho uu ku mashquulayo uu waqtigiisa ku bixinayo waxa marka dhacaysa in waqtigiisii waxyaabo kale uu ku bixiyo marka saytuun waxaa dhacday waqtigeedii in markaas jaceyl oo luqunta u geliyo wiil ay isjeclaadeen calaa taxaal wiilkana saytuun waxa uu ka weynaa sanad kaliya asagana wuxuu ahaa 16 jir hooyadiisii aabihiisa la nool xiriirkii jaceyl ee wiilkii gabadha u dhaxeeyay waxa ogaaday saytuun waalidkeeda iyo wiilashii la dhashay saytuun waxa lagu dhahay waa inaad joojisaa xiriirka aad sameynayso ee wiilkaas aad la sameynayso sababtoo ah waa wiil hooyadiisii aabihiisa la nool waa wiil yar oo aan shaqaysanin berita hadii uu ku guursadana mustaqbal fiican aan ku sameyn karin biil aan ku siin karin nololna aan ku sameyn karin sidaas darteeda xiriirkan waa ina meesha ku jirtaa ayaa lagu dhahay gabadha saytuun ahayd saytuun way ku madax adeegtay xiriirkeedii laakiin waalidkeeda kama soo horjeesanin oo hoos ayay ka wadatay waxeeda wiilkii ayay u tagtay waxayna ku dhahday hooyaday aabahay sidaas ayay dhaheen aniga waa ku jecelahay habeen adiga ku rabaa maalin adiga ku rabaa la'aantaada ma noolaan karo waxaan rabaa inaan iskuursano waalidkayga ka baxay yani noloshaan ay aniga igula talinayaan wiilkii gabadhii waa la isla baxay maalinkaasna saytuun hooyadeed waxay u dirsatay suuq inay adeeg uga soo gato laakiin saytuun ma ku soo noqonin xilli fiid ah oo maqrib ah ayaa waxaa guriga soo gaaray odayaal ka socdo wiilkii saytuun ay isla baxsadeen waxayna dhaheen gabadha saytuun ahayd anaga xageena ayay jirtaa wiilkeeni ayay isla baxsatay isla baxsad ama isla fakasho ama isboobitaanna ayaga uguma horeeyo inkastoo aan ka xunnaa qaladka uu sameeyay wiilka haddana waa 2 caruur ah oo aan waxba isdhaamin qaladkina waa uu dhacay xeerkii Soomaali u yeelayna waan soo mareynaa xumeyn iyo sameeyna waan bixinaynaa gabadhii waalidkeeda waxa ay ka dhigi karaan malaho ayada ayaa waalidkeeda arintaas markaas dhex istaajiyay wayna ogolaadeen gabadha saytuun ahayd waxaa la dajiyay gurigii wiilka familkiisa ama sodohdeeda waxaa la dajiyay qolka uu ninkeeda ku noolaa iyo walaalkiisa ayaa looga bixiyay alaab yar oo mustacmala ama maxay to celis ahna
meelaha alaabta celiska lagu gada ayaa looga soo gaday kuwii ayaa gurigii loo goglay gabadha saytuun ahayd todobadii markii la gaarin hooyadeed hadda hooyo walbo Soomaaliyeed gabadheeda la guursado waajibkii ay kasoo bixi leed way uga soo baxday gabadheedii bacdama todoba ay kasoo baxday gabadhii saytuuneed waxa u bilaabatay nolosha runta ah xaqiiqda ah ee lamaano walba isguursado kadib u bilaabanaysay saytuun waxay ahayd gabar ku nool familka wiilka qabo dhexdiisa kula nool nolosha markaas ayaga ay ku nool yihiin ma ahayn gabar cunto gooni u karsanayso waxay rabtay helayso gurigaas dariga laga kariyo ayay la cuni jirtay gabadha saytuun ahayd nolol iskaga qanacsan maadaama ay tahay qof jacayl wax ku soo guursatay waxna jecel يعني waxyaabahaas dhibaatadaas iyo ciriirigaas iyo noloshaas isla wadaaga ah waxba uma arkeen gabadha saytuun ahayd laakiin soo 12 bilood markii saytuun uu guurkeedii ka soo wareegtay ayaa maalmaha kamid ah waxa gurigii imaaday goor markaas ay taa waliba fiid ah odayaashaasna waxay dacwo ka ahaayeen saytuun ninkeeda maxay dacwo uga ahaayeen saytuun odigeeda waxa lagu soo eedeeyay odayaasha imaadeen gabar ay dhaleen ay waalid u yihiin inuu uureeyay wiilka saytuun qabo cidina uu ka soo garbaxo gabadhina uu xalaalsado ilmihii iyo gabadhii uu isku qaato aabihii wiilka dhalay wuxuu dhahay wiilkayga laga yaabo inuusan sameynin waa aroos cusub asaga weydina adkiisa xukminayna waxa laga yaabaa gabadhiina in ay ku nabeeso waxa lagu dhahay wiilkaaga waa wici kartaa gogashan waa soo fadhiisin kartaa sida ayaa loogu wacay waxaana laga wareystay arinta ahayd in uu sameeyay arinta lagu soo eedeeyay ee uurka ah wuxuu ku dhahay gabadhaan xiriir waan lahayn sidoo kalena uurka aniga ayaa iskala waa sax arintaasna way dhacday qalad dhacay ayuuna ahaa asxaabay raal noqda qababa lagu jiro codka dhinaca xiranbo qalad iga dhacay ayuu ahaa qaladka hadii uu dhacay qaladka waa in la saxaa ayay dheen odayaashii gabadhina waa inuu meersadaa uuna guursadaa cunuga waa horgal waaye cunug xaaraannimo ku galay waa caloosha calaa taxaal arintii waxaa la dhahay hala daboolo sidii ayaa gabadhii kale wiilkii loogu meeriyay loo soo guuriyay gurigii aroos yar oo qafiif ah loo dhigay on saas yani u sii maxayto dibadneen maadaama gabadha ayada naftarkeeda u baahan tahay in la asturo xagee la dajiyay waaye gabadha saytuun ahayd qolkeedii qol ku dhagan oo markaas dumaashiyaasheed ay seexanayeen ayaa gabadhii kale la dajiyay dumaashiyaashii intay seexanayeen waa guri cariiri ah waaye habeenkii saytuun uu la seexanayo ninka labada gabdhood ee wiilka la dhashay waxay la seexanayaan gabadha cusub ee gadaal looga soo guuriyay saytuun ninkeeda habeenkii uu maxay to gabadhaas la guursanayeen gabdhihii ee dumaashiyaasheed waxay la seexanayaan saytuun marka waxay aragtay in ninkan shalayta uusan u guursanin jacayl maxaa yeelay ayagoo 12 bilood kaliya isqabo guurkoodii ka soo wareegtay ayuu naag kale xiriir la sameeyay waliba uu soo uureeyay kadibna uu la guursaday gurina la soo dajiyay arintii saytuun way ka xumaatay wayna ka qoomameysay waxayna ogaatay inay soo qaadatay go'aan qalad ah ayna ku fududaatay wiilkan guurkiisa ah gabadhii maseer iyo adiga buuq badan kadib waxay dalbatay in la furo isjiid kadib waxa la dhahay iska fur gabadhan fududay waalidkeeda u dir gabadhii saytuun sida ayaa lagu furay waxaana loo celiyay waalidkeed gurigoodii kaliya waxay guriga kala soo tagtay dharkii arooskii loo keenay iyo waxyaabihii loo gaday wax kale ay ka soo qaadatay guriga haba yaraatee ma laho saytuun hooyadeed iyo aabeed ay raali gelisay waxayna ku dhahday iga raali noqda qalad ayaan galay khaladkii shalay aan galay ciqaabtiisa waan soo arkay in maxay too wada qaldan aan qaadayna waa arkay waalidkeed ay gari jilib qabsatay waalidna waa beer wax dhalay si walba isku adkay haddana ilmihiisa ma ku adkeen karo uu beer la xawsana waa la cafiyay saytuun waxaana la dhahay gurigan shalayta waa laga jeclaa maantana waa laga jecel yahay qaladkan aan samaysayna ku noqdo mid aan kuwaan qaadato oo darsi aan ka qaadato si aan ugu fududaanin qaladkan mid la mid ah gabadhii waxaa lagu soo dhaweeyay kalgacal iyo maxabo iyo in laga gudoomi raarigelinteedii
saytuun nolosheedii caadiga ayay ku nooleed muddo 6 bilood ilaa 7 bilood ayay garoob ahayd. kadib waxaa dhacday dhalinyaro ay asxaab yihiin xaafadda deganaa oo adiga isku fiicnaayeen oo wiilal iyo gabdho isugu jiro ayaa xaafadda waxay iska abaabulayeen inay soo tahriibaan ay soo aadaan wadamadan qurbaha ah. saytuun waxaa lagu dhahay maadaama aadan wax baranaynin garoobna aad tahay oo lagu soo furay gabar yarna aad tahay. waqtigaasna saytuun waxay jirtay 16 sano maxaa yeelay 15 jir lagu aroosay 16 sano yani wax bilooyin la raacay adiga 16 jir ayay ahayd gabadha saytuuna. ninkeedana markaas adiga wuxuu iska ahaa waa 16 jir oo ahaa asagana sanad ayuu ka weynaa waa ilmo yar yar oo iskuursada ayay ahaayeen. marka gabadhii waxaa lagu qanciyay in asxaabtan raacdo ay soo taariibto wadamadan nolol iyo maxay ahayd mustaqbal fiican ay ka samaysato. arrintii way la dhacday gabadhii saytuun ahayd way soo qaadatay waxayna ola imaaday hooyadeed waxay ku dhahday hooyo aniga shalayto waxbarashadii segseg ayaan ka noqday waan guursaday markii labaad guurkeygii waa kusoo fashilmay haddana marka xoogaa waa la qabsan la'ahay noloshii waxaan rabaa inaan soo jawi bedasho mustaqbal aan samaysto nolol fiican samaysto idinkan wax idin taro asxaab ayaa bixisa asxaabtaas in laygu daro wixii markaas qarash aan iga bixisaa. maamadii waxay ku dhahday aniga qarash aan Yurub kugu geey gabadheedii ma helayay tiri aniga bacaadlahan ka shaqeysta ay dhahday oo dhar ay gadeysay maamada. aabahana waxay dhahday baqaar ayuu leeyahay oo cuntooyinkaas ayuu jumlo ku bixiyaa asaga hadii ay ka go'an tahay inuu ku diro waxay dhahday gabadheedii aniga waxa ku diiday haba yaraatee ma jirto. saytuun arintii way la soo baxday waxay wala hor imaaday aabaheed waxayna ku dhahday aabba saasi wax u jiraan waxaan rabaa inaan baxo. aabaheed saytuun wuxuu bilaabay inuu ku qayliyo oo dhaho adiga wuxuu dhahay qaladka mar walba maxaa u jeceshahay inaad sameyso shalay qaladka ugu weynaa noloshaadii iyo mustaqbalkaagii ayaa ku burburisay gabarnimadaadii ayaa ku weysay nolol kuma helin 11 bilood ninkaagi la nooleedna nolol maanta high class oo istariixa kuma nooleen nolol cadaab ayaa ku jirtay. marka wuxuu dhahay haddana ha ila imaanno dhawaa tahriiba iyo waa baxa dhalinyaro raaca ay warkaas wuxuu dhahay iga joojiyo dhahay tilaabo gurigaan ma u gedin kartid haddii aad ka baxdid wuxuu dhahay aniga lagama yaabo yar gurikeyga inaan kuu gado ama lacagtayda inaan kugu diro oo wadamadaas aad ku tagto haata ayay ka tahay. يعني gabadha saytuuneed aabeed waa u deeriyay meesha ugu dambeysay ayuu u deeriyay. saytuun marka maxay sameysay waay dahab yar oo hooyadeed ay lahayd gurigiilay iyo lacag markaas guriga tiilay ay isku soo jajaafatay wayna soo dhuumatay oo waxay soo raacday dhalinyaradii soo tahriibaysay. waxay soo aadeen marka dhankaani waxay soo mareen Kenya واو يي ميا ما قناني meelahaas ma soo marin xilligaas soo tahriibaayay marka meelahaas ay soo mareen gabadha muddo kadib waxay soo gaareen wadanka Suudaan ay soo gaareen. Suudaan markii ay soo gaareen qarashkii saytuun waa uu ka go'ay wax lacag ah ay gacanta ku haysan ma laho. qof walba waalidkiis walaalihiis dadkiisa u qaylo dhaansanay kii Yurubtaas iyo banaanka ka qaylo dhaansanay kii wadanka ku soo laabanayo oo guri iyo adiga beere iyo maxay heeto waxyaabo loo gadgadaayo dadkii adiga waalidiintooda ayaa lacag u soo kala dirdireen groupka ee la socotay in yar moogay inta kaleento waa la diray oo waxa la raacsay baawarkii ee Liibiya ku gaari lahaayeen. saytuun waalidkeed ayaa soo wacday وانا لو ديري تلفون كان والو دميي طلاق عداتي gabadha saytuun ahayd geergo'na ay joogtaa lacag xitaa waa ku soo noqon hadii ay dhahdo ay ku soo laabatay Soomaaliya kula soo laabato ma haysato lacag ay dhahdo waa ku baxa oo Liibiya ku gaara ay dhahdo sidoo kale inta ma haysato lacag ay dhahdo waa ku noolaana oo wadankaana ku joogi kara ay leedahay ma haysato sidoo kale inta waa shaqeysana hadii ay dhahdana wadankan qof ay ka taqaano sidoo kale ma laho. guriga muqallaska ay joogtaan waxa ku socda cuntadii ay cunaysay iyo guriga markaas dhalinyarada tahriibta meesha ku soo maraayo ijaarkiisa ayaa ku socda oo waa laga rabaa. gabadha saytuun ahayd waxay markaas caawinaad weydiistay wiilka muqallaska waxay ku dhahday walaalo xaalkeyga meeshaas ayuu maraa waxaan ka rajeynaa oo na ka codsanaa ina ii fiiriso buuga naxariista walaasha oo kalena ay ka soo qaado
maadaama dadkan badankoodii ay ku siiyeen lacagta waxaan kaa codsanaa inaa igu darto gruubada baxaayo si lacag la-aan ah igu darto. wiilkii muqallaska ahaa intuu ku qoslay ayaa wuxuu dhahay adduunkan ma jiro wax lacag la-aan la dhahaayo, dadkaaga waa lacag kuu soo dira. waxay tiri dad iga dambeeyo oo maanta wax ii soo diraayo malaho. alloor hadee sidaas taho wuxuu ku yiri aniga bilaash wax kuma dhiibi, waa ku guursanaa oo waa ku meersanaa. guur ma aan ya aroos loo dhigaayo, waa ku meersanaa u dhahay. ilaa intaa kaa xiisa dhigaayo ayaa ila noolaanaysa, ila joogaysaa, kadibna waqtigay qaadato bilooyin kadib lee noqotaa iyo maalmo kadib lee noqotaa sida aan kaaga xiisa gooyo ayay ku xirantahay. kadibna gruubka baxaaya ayaan kugu daraa. haddii kale soo maaha waa inaa bixisaa lacagtaa ku bixi lahayd. haddii aad aadidna meeshaana sii jooga waxaa ogaataa cuntada aad cunaysid iyo meesha aad joogtid ijaarkeeda inay kugu socoto. gabadhi saytuunahe talaa ku caddaatay, waxay samaysa malaho. ninkiina sidaas ayuu ola hadlay oo la dhaqmay. saytuun ayadoo iska ooynaysa gruub walba meesha ay ku imaanayaan ay ku baxayaan ku imaanayaan ay ku baxayaan ayaa waxaa dhacday dad cusub inay imaadaan oo tahriibiyaal ah. dadkii cusbaa waxaa ku jiray wiil lagu magacaabo cabdi. cabdi wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah, dadkiisa badankood ay jiraan Amerika, Canada iyo Yurub ay kala joogaan walaalihiisa. marka wiilkaas wuxuu ahaa wiil layman badan isku day, laakiin laymankii ay u suurtageli waayeen soona daasaday, kadibna go-aansaday inuu tahriib soo galo. walow ay dadkiisii aysan rabin wiilkoodii inuu tahriib iyo wadadan uu soo galo, laakiinse asaga ayaa ku madax adeegay inuu soo galo. wiilkii ayay saytuun meesha isku barteen. waxayna isku barteen, wiilkan wuxuu arkay markii muddo meesha maalmaha uu joogay inta yacni dadkii laisku keenaayo waxoodii loo hagaajinayo, gabadhii oo mar walba fikirayso ooynayso mararka qaar ayuu arkay. wuu u dhawaaday, wuxuu ku dhahay walaashay aniga waxaa lagu magacaaba cabdi. ayadana magaceeda uu sheegtay, saytuun ayaa lay dhahay ku dhahday. marka inta joogtaa intay joogtay u sheegtay. marka waxay dhahday aniga meeshaan lacag la-aan igu haysaa, ninkaana saasuu i dhahay, haddii aragtay inaan ku wado waa inaa sidaas ii samaysaa. marka been ayay sheegtay waqtigaas saytuun oo waxay dhahday aabay hadda ka hor ayuu nin igu daray. ninkan waxay tiri waxyar ayuu i qabay, haddana wuxuu rabay oday waayeela inuu igu daro. kadibna waxay tiri waan kasoo baxsaday. hooyadeena marka xoogaa yaroo lacag ah iyo dahabay isoo siisay, intii ayaa inta kusoo gaaray ayay dhahday. marka qarashkiina meeshaan ayuu iiga go-ay, hadda meeshaan waxaa uga baxo ma haysto. wiilkii gabadha horta arinteedii يعني وين لحويسي وين حنونجسي marka wuxuu dhahay insha Allah niyada khayr u sheeg wax walbana sida markaas wanaag ay ku dhamaan doonaan. marka wiilkii muqallaska ay u tagay cabdi wuxuu ku dhahay gabadhan maadaama ay ku sheegatay danta maxaa ugu tumanaysaa walaasha ka soo qaat hadii xaaladan ay ku sugnaan lahayd ma jeclaan lahayd in sidaas la dhaho adiga dhan wanaag ay wax ka tusay wiilka muqallaska laakiin wuxuu dhahay arintaas aniga uma socoto sidoo kale inta oo ogteen muqallasiinta wax jixinjix iyo naxariis agtooda ma taalo. wiilka cabdi markuu arkay in ninkan sida uu yahay lacagtii waalidkiisa uu ka dalbanayay iyo walaalihiisii u soo dhiibayeen ayaa lacag dheeri ah uu ka dalbaday. lacagtii loogu soo darayna wuxuu siiyay gabadha saytuun ahayd si markaas ninkan mar un ay uga soo baxdo gacantiisa. hal baawur ayaa la soo wada saaray saytuun iyo cabdi waxayna soo gaareen Liibiya. xilliga Liibiya ay soo gaarayeen waxay ahayd xilli bad xirankii uu dhacay badana ay baraf noqonayso marka guri ayay joogeen oo markaas muqallas uu leeyahay. gurigii marka waxaa dhacday in qaboobihii iyo dadkii jaamac la isku yeelan guriga rag iyo dumar badan oo meelo kala dudugan Soomaaliya ka kala imaaday la isugu keenay meesha la isdhex seexanayo. marka wuxuu dhahay aniga guriga gooni u ijaarnaa markii wax walba ay diyaar noqdaan marka ka soo baxa. gabadhi saytuun ahayd iyo wiilkiina marka intaas waxaa marka dhaxmaray xoogaa xiriir ayaa dhaxmaray waana la isjeclaaday kadibna waa la ismeersaday. gurigii uu ijaartay cabdi ayay ku wada noolaayeen gabadha saytuun iyo wiilka cabdi ahaa. bilooyinkii winterka ama qaboobaha markii laga baxay kadibna waxaa markaan la qaban qaabiyay dadkii ama groupkii bixi lahaa ee doonta la saari lahaa.
nasiib wanaag hal group ay isla noqdeen cabdi iyo saytuun maadaama haddana ay yihiin lamaane isqabo. habeenkii waa la soo waday oo waxaa la keenay meeshii doonta laga raacayay. nasiib daro waxaa dhacday in booliis ama maxay too shurdadii markaas liibiyaanka arrintii loo sheegay oo la jaasuusay kadibna waxay imaadeen xeebtii. dadkii wixii baxsan kara 2 iyo 3 way baxsadeen, inta kalena waa la soo waday oo baabuur weyn ayaa lagu soo aruuriyay, xabsiga ayaana loo soo waday. intii dadka la soo dadajinayay gabadha saytuun ahayd istaag ayay ka dhacday. markii baabuurka dadka laga soo dajinayo waaye isla markii waa la iscaafay oo waa la waday. inta kaleetan xabsiga ayaa loo qeybiyay. cabdi wuu maqlay gabadhiisii in maday oo ay suuxday. gabadhii saytuuneed waxaa la keenay isbitaal, waa la baaray, waxaa la ogaaday inay uur leedahay, xoogaa dhiig yari iyo waxyaabahaasna ay haysay. faleebooyin ayaa la duray, waxaana la go'aansaday markii faleebooyinkooda ay kusoo dhammaadaan in loo soo celin doono xabsigii. laakiin saytuun way kasoo baxsatay isbitaalkii, waxayna usoo noqotay ninkii muqallaska ahaa ee doonta soo saarayay. waxayna ku dhahday aniga waan soo faktay, waxaana rabaa inaa meeshaan iga dirto, waxaan ku joogo iyo qof aan la joogo midnaba ma haysto. marka wiilka muqallaska ahaa wuxuu dhahay 2 habeen sug, doon soo bixaysay ayaa gabadhii la soo saaray. dhinaca kale wiilka cabdi ahaa xabsiga ayuu ku jiray. waana ogtihiin qofka haddii sharci daro uu wadanku soo galay, sharci daro lagu qabtay oo xabsi uu ku jiro, boolis lama doodi karo ama shurtada lama doodi karo. wuu weydiiyey xaaskiisa, laakiinse waxaa la anagana ma weydiin kartid, xaaskaaga waa weynay, afkaaga isa saar, haddii kale yacni waa la garaacaa soo maahan. marka waxaa dhacday gabadhii saytuun ahayd inay soo gashay wadanka talyaaniga ah. talyaaniga markay soo gashay kadibna way kasoo baxsatay, waxay soo gashay wadamadan Yurubta ayay soo gashay. way isdhiibtay. markay isdhiibtayna waxay isku dhiibtay in ay tahay gabar la soo dulmiyay, la xirtay, lugta ay ka xirneed, liibiyaan ay soo kufsadeen, uur ay usoo yeeleen, dhib iyo rafaad badan ay kasoo martay wadada intii ay ku jirtay, dhowr kufsi iyo tacadiye fara badan loo geystay. gabadha dhibabkaas faraha badan markii ay sheegatay, sharci fiican ayaa la siiyey, guri ayaa la dejiyay, nolol qurux badan ayay gabadhii sidii ku gashay. muddo markii ay ku nooleed wadankii waa oo sanado ah way guursatay saytuun. markii ay guursatay caruur kale dhashay, maasha Allah ilmo waaweyn ay dhashay oo markaas rooroon. laakiinse cunugii markaas ay uurka ku waday wuxuu noqday wiil. wiilkana markaas da'diisa wuxuuba gaaraybo 12 jir. waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah inay gabadha saytuun ahayd ay kasoo guurto magaaladii ay degneed ama gobolkii ay degneed ay usoo guurto gobol kaleento isla wadankii le ah. guuritaankana waxaa sabab markaas u ahaa ninkeeda ayaa shaqadiisa markaas u badneed gobolkan, saas darteeda familkiisa oo dhan ayuu soo wareejiyey oo magaaladan usoo wareegsaday. marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah dukaan inay isku barteen maamo Soomaaliyeed oo ayadana wadanka in badan joogtay, ilmaheediiba 20 jir ah, ayagoo yaryariisa qaar ay ku dhashay oo qof deegaanku ee meesha ayay isbarteen. Soomaalina saa wada ognahay maanta haddii ay isbarano isla kulano bari waxaa laga yaabaa maalin saddexaad inaa gurigeygii ku keeno, aan ku martiqaado, aan ku soo baro. marka waxaa dhacday gabadha saytuuneed inay soo wado gabadhii kale ay keento gurigeedii ay keento. markii la keen gabadhii martida ahayd ayaa waxay aragtay wiilkii saytuun ay dhashay. markaasaa waxay dhahday saytuune wiilkan waxaa laga jeexay dhahday walaalkeyga u egyaa inta taagan waaye. marka saytuun waxaa kaleentoo jira markii ay Yurub imaaday magac saytuun ma isku dhiibin, magac kale ayay qoratay ay baxsatay. bas waxay ku dhahday wiilkan walaalkay ayuu u egyahay, waaba laga gooyay. markaasaa waxay ku dhahday saytuun laga yaabay tiro qofkiiba 40 qof ayaa u eg, laga yaabay inuu walaalkaa u eg yahay. marka bini'aadankan way isku ekaan karaan, Soomaalidana badankooda adiga way isku ekaan karaan, saas ayay dhahday. marka waxaa dhacday gabadhii martida ahayd dhowr mar kaleenta inay guriga imaaday. gabadhii cunug waxba u soo jiidaayo raal ahad asxaabe. gabadhii marka cunugan waxba u soo jiidaayo mar walba. markaasaa waxay weydiisay cunugan weynka ah ma waxa u dhashay ninkan kale ee ku qabo. markaas waxay dhahday may, aabiis waan kala tagnay, asaga ma dhalin cunuga. markaasaa waxay dhahday
aabiis marka waa kala tagteen intee isku barteen intee kan waxay dhahday wiilka aabiis adiga Soomaaliya isku qabi jirnay waa soo baxaa soo uurkiisa aan leeyahay soo galay meeshaan marka waa kaasa saas miyaha gabadha martideed marka arintii ma aqaan waxba shaki iyo waxyaaba adiga kulli galgalay bas walaalkeed ay maalin la hadlays markaas waxay ku dhahday Cabdiyo gabar ayaan arkay tiro aan barto oo Soomaali ah cunugeeda waxay ku dhahday adiga oo inta taagan waay tir waaba laga gooyaybo markii aan wareystan waxay dhahday aabiis waaba kala soo tagnay Soomaaliya ugu qabi jiray markaas wuxuu dhahay wallahi aniga hal gabar ah soo guursaday inta wadada ku soo jiray gabadhina wuxuu dhahay habeenkiina la qabanay ayaa igu wardambeysay inay noosha inay dhimatay ma kala ogay gabadh uur may ku laheeday ku dhahday wuxuu dhahay aniga ma ogeyn oo dhahay inay uur leedahay in kala laakiis gabadha waqtigaas ayaa igu dambeysay dib dambana muu arkin oo meel ay joogto email ay ku dambeyso midnaba ma ogey marka waxay weydiisay magaceeda wuxuu dhahay Saytuun ayaa la dhahaa gabadhaana Saytuun looguma sheegin magac kale inta ay baxsatay markii qurbaha soo gashay oo magac isma keenayo waqtigii iyo maxay ahayd adiga ee isqabeen oo kale iyo cunugii da'diisa la isku fiiriyay waa da markaas isla waaye wiilka Cabdi wuxuu ku dhahay haddii adiga saasaaba uga shakinaysid gabadha sawir iga soo qaad sidoo kale cunug sawir iga soo qaad kadibna ii soo dir aniga aqaan gabadha sidii u tiilay waayay ku dhahday maalin maalmaha kamid ah dan xaafadii ay timid waxay sawir ku soo xaday gabadhii Saytuun ahayd waxay kale sawir ku soo xaday cunug yaraa walaalkeed ayayna u dirtay walaalkii markii uu arkay sawirkii madaxa laba kala noqday gabadha waa Saytuuntii asaga uu yaqiinay ee xaaskiisa ahayd ee isjeclaayeen ay kala soo dhumeen oo habeenkii la soo qabanayay ugu dambeysay markaas wuxuu dhahay gabadha waa iyadii waa Saytuun markaas waxa ka dhahay Saytuun ma la qofta magacaas la dhahaa wuxuu dhahay magac way bedelatay moogi qoftan waa Saytuun oo dhahay had sidii uu nooshaa gabadhan waa xaas waaye nina qabo caruur ay leedahay wadanka muddo badan ay joogtay waa kaas waqtiga ay soo gashay ayuu weydiiyay waqtiga markii uu shaaday waqtiyadii oo dhan waa waqti isku imaanayo isleh waaye wuxuu dhahay wiilkan aniga ayaa dhalay markaadii sidaas ay tahay ee ku dhahday nin kale ayaa iga dhalay aabiisna Soomaaliya ku soo tagay waa beenteed xiligaasna waxay dhahday nin waa la igu daray ninkan uu soo furay haddana aabe waxa uu soo orday nin ayuu igu daray ee waa beenteed waa wiilkii adiga wuxuu soo qaatay diyaarad wuxuu u yimid walaashiisa uu imaaday gurigeeda ku soo degtay wuxuu dhahay igey dalaf sida loo soo socday Saytuun wiilkii Cabdi ayaa laga kor keenay oo gurigii loogu imaaday waqtigaasna ninkeeda ma joogin oo shaqo ayuu jiray Saytuun markii Cabdi aragtay shoog ay qaaday way naxday maxay ku naxday waa ninkeedii horo waxay dhahday intee ka imaaday intee ku dambeysay nolosheeda hadda imaaday oo soo dhax gashay wuxuu dhahay walaali ani habeenkaas isku keenay dambeysay sidee wax u dhaceen waay waxay dhahday aniga dhig yaraana ay haysay isbitaal la qaaday kadibna waxay dhahday muqallaskii aaday waxaan dhahay walaalo doon igu dar doontii la igu dar sidii aan wadamadan ku soo galay wuxuu dhahay intaas oo dhan hay dambeeyso dhahay ninna waa ku qabaa waa arko dhahay ilma leedahay reera leedahay taas dhan meel iga dhigo dhahay cunugan yaa dhalay markaas waxay tir cunugan adiga ma dhalin gadaasha aniga nina guursaday ninkaas maxay heeto leh ninkan waa kala tagnay markaas wuxuu dhahay maxaa beenta u sheegaysaa waay aniga nin iga dambeeyay haduu ahaan la cunug inta ma gaarsiisnaan lahayn cunugan ana dhalay maxaa ii ekeeyay waay adiga gabadhii waxay isku adkeysay cunuga inuu nin kala dhalay markuu arkay inay arinteedii ay ku dhagan tahay wuxuu dhahay walaashiisa waxa rabaa gabadha inaa dacweeyo isla markii gabadha walaashiisa maadaama wadankan ay muddo badan joogtay ilmeeda 20 jir ay yihiin dacwada waxa lagu soo oogay gabadhii Saytuun ahayd maxkamadda looga wacay meesha isqabsi fara badan ayaa ka dhacay waxa la ninkan wuxuu ugu soo eeday cunugan inuu asaga dhalay cunugan ayaa ka dhalay waxay dhahday cunugan waxa iga dhalay nin hore ii qabi jiray waana kala tagnay pointii koobaad Saytuun meesha ayaa looga helay maxaa yeelay markii wadanka soo galeys waxay dhahday nin Liibiyaan ayaa isoo xoogay cunugan nin Liibiyaan ayaa dhalay ayay dhahday qaladku ugu horeeyay kaas ayuu ahaa ay sheegtay mid kale inta magaceedii inuu Saytuun ahaa haddana magac kale inta isku dhiibtay
والله واي قلدك إيه قشي نينكا عنقيسي إني كلا صوب بحثت على أي تحال أبوكاتي قبصتي سيدو كلا أنت عبد ولا شيء أبوكاتي الكلا قبضتي العقفر بدنا لجريه وحامشي نقصو إيدي قبل سيتون هاد inay tahay dambiilo wadankana dambi ka gashay been sharciga ku qaadatay dawladda qiyaantay wadanka qiyaantay sharciga weynaana sidii lagala naqday waxaana la dhahay sidoo kale inta DNA ayaa loo marsiinayaa ninka cunuga hadii uu leeyahay iyo hadii kal DNA-gii markii la marsiiyay cunugii waxa lahaaday cabdi ayaa lahaaday waxaana la ogaaday inay been sheegtay processkii iyo waxyaabihii ay ku martay interviewga inay ahaayeen wax wada fake ah noloshii gabadhii quruxda badneed hal mar ay dhulka gashay ninkii hore ee markaas ninkii dambe rabaa ee ilmaha u dhashay ayaa maxay abukaatay waxyaabo u qabtay calaay taxaal isjijiid iyo maxay dacwooyin fara badan kadib adiga markii dambe waxay ahayd in sharciga xitaa wax loo soo celin doono xitaa wadanka ay ku joogto maadaama uu qaladkii ka dhacay ee hooyo tahay wadanka ilmo ay ku dhashay intaasoo sano ay joogtay qof shaqeynaysa canshuur soo gelisay ay tahay walow dawladda markaas ay ku wada daba dhignaayeen mar walbana dacwad maxkamadda mar walba ay imaanaysay marka arinteedii sidaas ay ahayd wiilkii cabdi ahaana cunugiisii waa uu qaatay oo wuxuu la aaday wadankii markaas uu ka yimid oo waa la siiyay waa loo saxiixay cunugiisa marka qisada horta taas ay ahayd qisadan waxa ka soo wareegtay muddo fara badan ayaa ka soo wareegtay waa hore ay ahayd qisada Soomaali fara badan ayaa jirta ayaga oo isqabo oo xalaal isku hadana dhahayo boyfriend isku la noolnahay ilmihi xalaash dhahayo boyfriend isaga dhalnay ayaga oo markaas shilimaad yar ama sharci ku raadinayo arintaasna Soomaalida 100% waa ay ku badan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabahaas iyo waxyaabo ay ku gurinaga ma geliyo wax walba qalad samaysidna ugu dambeyn ciqaabteeda waa helaysaa gaalada naftirkooda adiga iyo qiyaan ku dhahay waaya u qiyaanaysaa abeenta uu sheegaysaa been walbana run ayaa ka daba imaado marka waxa isleedahay wiilka cabdiha gabadha nolosheedii waa uu gabagabeeyay oo sidaas inuu sameeyo ma ahayn misana waa uu ku saxsanaa ayaa isleedihiin mar walba commentiga waa dhinaciina meeshaas ayaan ku egtaa horta qisadeeni hada muuqaalka heshay waxa idin ka codsanayaa inaad muuqaalka like ii saartaan videogan asxaabtiina igu share gareysaan intaan videogan mid la mid ah ku kulmi doono waxa idin kaga sii tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullah